السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سومالي وين ميركس عالكم شنو سلامي. كليب كان قابن waxaan rabaa maanta inaan ku soo gudbiyo laba qodob. Qodobka koowaad waxa weeye khudbo uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku saabsan batroolka Soomaaliya iyo sida uu u saxiixay iyo qaabka u saxiixay iyo waxa ka soo baxay heshiiskaas markii hadda la ogaaday uu soo banbaxay. qodobka kalena waxa weeye diyaaradaha Ethiopia oo Soomaaliya duqeymo ka geystay shacabka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan baa la rabaa arrimaha ka socda Soomaaliya arrimaha siyaasadda oo hal nin uu jugeysanayo hal nin madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxaan la yaabi jiray dad siyaasiyiin ah oo anigu markii hore aan u qabay inay niman aad u khaldan yihiin laakiin ay ii soo baxday markii dambe ilaa siyaasadda waxa laga bilaabaa karishbeynimo waa inaad akhridaa waa inaad fahantaa waa inaad la socotaa waxay dhihi jireen Soomaaliya ciidan xoog badan uma baahna Soomaaliya dawlad xoog badan uma baahna marka waxa ku soo baxaysa shacabka Soomaaliya markay arkaan madaxweyne aan tabar lahayn oo ciidan lahayn oo awood lahayn oo waxba lahayn oo caawa alla wuxuu isku haleynaya aadan aqoon oo qaabka u dhaqmaya markaa aragtid waxaad arkaysaa hadduu ciidan lahaan lahaa awood leh wuxuu samayn lahaa madaxweyne aan ilaalin karinin madaxtooyada agaarkeeda ilaalin karin oo abuse gareynaya awoodii lagu heshiyo dhan wuxuu abuse gareeyay shuruucdii waxay degsadeen oo markii hore qabyaalada jafays ku salaysanayd ayuu abuse gareeyay misana khayraadkii waddanku abuse gareeyay oo qaab aan arag oo ogeyn ayuu saxiixay waxa la dhihi karaa saxiixaas wuxuu wareejiyay madax bannaanida Soomaaliya sida xaqiiqda marka la fiiriyo marka waxaan rabaa sida uu dictator u yahay aan waxba dhageysanayn madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud horta inaad wax dhageysataan clipkan heshiiska dalka Soomaaliya ana madaxweyne ka ah qof iga dambayso oo dawladda iyo magaceeda iyo sovereignty-geeda ku hadli lahayd ma jirto heshiiska inta ugu muhiimsan waa intaas aniga wakaa marka Xasan Sheekh Maxamuud xashbad waqaasta wuxuu arkaa awoodda dalka oo dhan inay gacantiisa ku jirto buu qabaa wuxuu doonu saxiixaya wuxuu doonu go'aaminaya wuxuu doonu kala tuurhaya wuxuu doonu bedelhaya ma garan karo macnaha shacabka Soomaaliyeed say u fakarayaan xaqiiqdii ma garan karo ilaa haddana waa yaabana waddanka waxa la yiri waa waddankan waxa leeyahay federal intaasoo gobol buu leeyahay madaxweyne goboleedyada jira ma garan karo xataa madaxweyne goboleedyada laftigooda qaarkood waxay u aaminsan yihiin waxa la rabaa haddii la rabo Soomaaliya in la badbaadiyo oo Soomaaliya soo noqoto dowlad goboleedyadu inay hadda hadlaan oo waliba baarlamaanadu hadlaan oo sharcigan la saxiixay la ogaado qaabkiisa la ogaado iyo qaabka loo waxa ka dambeeya in la ogaado baan waxa u taallaa baarlamaanada dowlad goboleedyada u taallaa hawlba u taallaa iyo madaxweynaha gobolada sababtoo ah madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud qaabka uu hadlisada u jeedeen waa kaliga talis kaliga duul ah kaliga uu laga rabaa baarlamaankuna waa baarlamaanka 3 sano barka hadda la soo dhaafay la ogaaday oo jifo kasta iyo qabiil kasta Soomaaliyeed ay soo saareen kii ugu liitay boqolkiiba 8 waxa la dhihi karaa xildhibaanada Soomaaliya dadka ugu liitay weeye xeerooyin iyo dugsiyo ay wada hayaan la keenay meesha ama meelaha qaabka cunaya dad baaba'ay oo waxtar lahayn ba halka la soo keenay waxaan loo dhiibay guddoon aan waxtar lahayn aadan madoobi ba irska loo fariisiyay hadday sharaf iyo akhlaaq iyo waxgarad iyo aqoon leeyihiin aadan madoob ma horfadhiyeen marka dadka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ha tooseen waddankooda ayaga leh xornimadooda in la wareejiyo hal nin wareejiyo oo wax alla wuxuu doono saxiixo sax maaha arrintaas halkaas aan uga baxaya arrinta labaad waxa weeyaan rabaan kilibkan ku yiraahdo waddankeena wuxuu noqday meel lagu tababaro dhalinyarada diyaaradaha soo baratay oo Imaaraadka iyo kuwa Ethiopia loo soo diro waxa la duqeynayaa magaalooyin u jira 100 kilomitir ka yar Muqdisho u jira 100 kilomitir baa la duqeynayaa waxa la leeyahay nabadiid baan la diranaynaa iyo Soomaaliya badbaadinaynaa aqliga qofka Soomaaliga uu shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed toosaan weey nin Ethiopian ah oo Soomaaliya cadawga koobaad ay u tahay iyo nin Imaaraad ah oo waddanka Soomaaliya inuu burburiyo raba oo dekadihiisa iyo airportkiisa iyo ciidankiisa inuu burburiyo raba oo lagu soo tijaabiyay waxay ka sameeyeen Yaman
iyo waddanka la yiraahdo Liibiya iyo wadamada la midka Carabta wax ka sameeyeen iyo Suudaan ay caddaho muuqato ninka ka sugahayo u qaba inuu waddankiisu badbaadinayo oo nabadiid nimanka masaajidda ku leeyahay culimada leeyahay inay ka ilaalin hayaan oo la dirar hayaan oo iyaga dilahayaan ninka u qaba habeen ma jiro ولين habeen jirin way siyaasadana ma fahmin nolosha basharkana ma fahmin waxaan leenahay marka dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed meeqsa caalamka joogan xatooseen dalkooda ayaga leh dalka 4 nin ama 5 nin ma lahan oo ku soo hogaamiya aloo shaqaystayaal caalamka laga keenay ku soo hogaamiya Turkiga dalkeena Turkiga lama yiraahdo Turkuna ma lahan oo wadan wanaagsan oo saaxiiba oo Soomaali saaxiib la oo madaxweyne waliba fiican haysto madaxweyne xisbigiisana fiican Turkiga waxa loo saxiixay waa in la ogaadaa ma jiritaankii Soomaaliya loo saxiixay iyo madaxbannaanideedii ma dhaqaalihii oo si fiican loo hagaajiyay baa loo saxiixay ma wax qabad baan ka helaynaa waa in la ogaado arrintan waxay u taallaa dowlad goboleedyada iyo baarlamaanadooda inay arrinta ka qabtaan oo laga hor yimaado oo la istaago intaas ku soo koobahaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh